بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبعا كان عشير رمضان توقدا بأيه waxaynu ognahay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay tobanka habeen ugu dambeeyana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeen ee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadka oo dhan yani tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadka oo dhan intiisa kale سأوجد بي إمام مسلم حديث كوسور يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحيلاذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كاهبين وغدا بأيه بشهر رمضان مد داله سيان وددال سنة كينتي سكر أولا إذن طبعا كان هبين وحقفك مسلم في وبهي أود وحليه هي أردن يرجعني ما يتمر يحوق بقى إن تسجد جيسو طبعا كان هبين عبادة دون ولبا عائشة وحيلا ذي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكم دها حديث الصحيحين كورينيان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله إمام مسلم الرواية دي سوحي زيادة نساء وجد وشد مئزره عائشة وحيلة ذي النبي عليه الصلاة والسلام تبكنا بعد هذا يصاب قلاه قلت قول ديش اسكي قد يجري لو يصاب على التراب قلت قول أتكيسن شري هبين كيسنا ونولين شري reerkiisana uu toosin jiray bay Caaisha leedahay waxaa kaloo sii muhiima inaad habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat alqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi alcashri alawaakhir waltamisuuha fi kulli watrin buu nabigu haddana fi kulli witrin وارتبانك الضمبك الرادية وهذا نوحا كسير رادي سامون بقول عليه الصلاة والسلام هبين ذا وتركا هبين ذا وتركا كسير رادي ومحاط قبل وحاط قبل عائشة وحيتي وإلهي هدو إلى كل مية محايا له حديث ابن ماجه يترمذي بورينا يا شيخ الباني صحيح يا شافعي والنبي يقول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه بعد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه إلى أهيو مدو حافية بات إيه عفي له وعفي قرأتشعل يا رب ويعفي له إذن هبين كان سيأكون راضع عيسو بريد إلهي بضي بريد إلهي بضي وهبينكم النبي قولي فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث يا أحمد النسائي بورنا إياه شغل الباني الصحيح قلت الماضي وهبين كم بلوتك خير بدن سيدا قرآن كما شاقيد ومن حرم خيرها فقد حرم النبي هبين نكح خير كده وياه هبين كان خير كيس نك وايا كاس خير بوا وخير باله خير باله يا شسيانة غبير هبين كان رابعه
sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa layidhi innaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati اlqadr leylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wuxuu u sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrkee aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igta dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega وهي سلام با إلهي كتلما وهبين نبت قليو شيطانية انت حمها ودوردن با لغا نبت قلا وهبين مقادير تصنت كصوصعة فيها يفرق كل أمر حكيم مقادير تصنت كصوصعة دوردن لصوقرو ملائكة اللو سوديمو وهبين النبي محمد دي عليه الصلاة والسلام النبي يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صدح شيء تلمامي قفك رمضان صومه إيمانا واحتسابا استقوا يقينسا ورميسا ومخلصا وطاعة لو إخلاص سمينيا واحتسابا حساب صنية إلهي وعدي سيا وعيدك سنة رميسا دبي سهرة لدافع نيجي رمضان تتكادا هبين ندى يسوى إيمانا واحتسابا دبي سالة دافع هبينك كان سيجارة نيجي تكادا هبينك ليلة القدر نيجي تكادا دبي سيبا لدافع بالي غفر له ما تقدم من ذنبه إذن أيها الأحبة وهبينكاس قدر كيسو ويهي أوبا هي قفك مسلم كاهي إن حوق الراتعي عباداتك وقبضا طبعا كان لصمي علماء التلمامة وحكمنا قرآنك وأخرس كيسا لبادية قرآنك وأخرس كيسا يتدبر كيسا واللبادية ويا إلهي بشنبه ودورتين ورم سودة جيو نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل باين توي ما دو بشطن قرآن كلا أخريش ولا دراسين سنة يودن بينا الله بقور بابو جبريل لا دراسة يقود الأخرين يعني نكون بدن هذاك وأنت علماء يدين شيء يسمى بأننا كل علي أنا قال ربابهم ما دام ما أنت كوبي على باطن هيدا هبين بتجي laga yaabo inay 8 hadhay ama 9 hadday u badato inaan idin dhiiri galiyo si aakhiradiina iyo xoogsigiina iyo camalkiina wanaagsan u dardargelisaan oo uga dheeraataanna
wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaat ah. dembi isaga maba hadal hayne waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso bal 8 habeena hadhay ama 9 habeena hadhay ragga intaynu iska dhigno raga bal raggii hore aan ka daba tagno salafil umma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix taxmiid tahliil laa xawla walaa quwata ila billah salliga nabiga calayhi الsalaatu wassalaam qur'aan akhris iyo wixii la mida salaa aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas buu ku leeyahay sala allahu calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam